nasa oo samaysay daadgureyn caafimaad oo ugu horreysay oo ka timaadda Saldhigga Cirka. CANAVERAL Florida Arday hawada sare u jooga oo u baahday daryeel caafimaad ayaa Arbacadii isaga soo baxay Saldhigga Caalamiga ah ee Cirka isagoo la socda saddex saaxiibadiis taasoo noqotay daadgureyntii caafimaad ee ugu horreysay ee nasa abid sameyso. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Afarta cirbixiyeen ee dib ugu soo laabanaya dhulka oo ka kala socda Maraykanka, Ruushka iyo Jabaan ayaa la filayaa inay ku degaan badweynta Baasifiga meel u dhow San Diego Khamiista aroortii hore iyagoo la socda Spaya. Go'aankan ayaa si lama filaan u soo afjaray hawshoodii hawada sare in ka badan hal bil ka hor wakhtigii la qorsheeyey. Zena Cardman oo cirbixiyeenad Maraykan ayaa tiri, wakhtiga bixitaankeenna wuxuu ahaa mid lama filaan balse waxa aanan la yaabin ayaa sida ay kooxdan isugu timid sidii qoysas daryeelaya. Nase waxay xaqiijisay in cirbixiyeenka xanuunsan uu yahay mid xasiloon, badbaado leh, si wanaagsan loo daryeelayo sida uu sheegay taliyihii hore ee Saldhigga Finke. Nase waxay sheegtay in sababta bixitaanka aysan la xiriirin howlaha socodka hawada sare spaceewelka ama howlaha kale ee Saldhigga, balse faahfaahin dheeraad lama bixin sababo la xiriira asturnaanta caafimaadka. Waxaa sidoo kale la caddeeyey in aysan ahayn xaalad degdeg Cusbitaalka kumeel gaarka ee markabka soo celinaya ayaa la socon doona koox kubaro caafimaad si ay u qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee cirbixiyeenka marka ay ku degaan biyaha. Cardman, Finke, Yui, Japan iyo Oleg Platonov, Ruushka ayaa markii hore la filayay inay sii joogaan Saldhigga Cirka ilaa dhammaadka Febraayo. Laakiin 7 Janaayo nase waxay si lama filaan u kansashay socod hawada sare oo ay wadeen Cardman iyo Finke, waxayna ku dhawaaqday in kooxda si degdeg loo soo celinayo. 3 cirbixiyeen, 1 Maraykan iyo 2 Ruush ayaa weli ku sugan Saldhigga Cirka iyadoo ay ka harsan tahay 5 bilood oo ka mid safarkooda 8 bilood Nasa iyo Space waxay qorsheynayaan inay bartamaha Febraayo hawada u diraan koox cusub oo 4 qof Inkasta oo moodooyinka kombiyuutarka ay saadaalinayeen in mar kasta oo 3 sano ay dhici karto daadgureyn caafimaad oo Saldhigga Cirka haddana tani waa tii ugu horreysay ee nasa ku dhacda tan iyo markii ay bilowday duulimaadyada bini'aadamka 5 sano ka hor. Sanadkii 1985, osmonautka Ruushka Vladimir Fasutin ayaa si degdeg loogu soo celiyey dhulka kadib markii uu ku dhacay infekshan halis isagoo ku sugan Saldhigga Salyut 7. Waxaa jiray dhowr cosmonaut oo kale oo Ruush oo la kulmay dhibaatooyin caafimaad oo fudud oo sababay in safarkooda la soo gaabiyo. Cardman oo 30 jir ahna saynis yahanad iyo sahminteedii ugu horreysay ee hawada sare ayaa seegtay fursad ay ku samayn lahayd socod hawada sare Platonov 39 jir oo hore u ahaan jiray duuliye dagaal ee ciidamada cirka Ruushka ayaa isna safarkiisii ugu horreeyey helay kadib sannado uu sugayay sababo caafimaad. Finke 50 jir iyo Yui 50 jir ayaa horey u sameeyey safarro kale oo hawada sare Yui ayaa toddobaadkii hore u dabaaldegay maalintiisii 3 ee uu ku sugnaa hawada sare isagoo la wadaagay muuqaal qurux badan oo uu ka qaaday buurta Fuji ee Jabaan iyo iftiinka aurora ee cirka.